السلام عليكم سودو لباح iyo libaaxad maanta waxaan doonayaa inaan ku sharxo film lagu magacaabo The Boy balse intaan ugu gudagalin muuqaalkeena maanta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal isku day inaad si taxaddar leh uga jawaabto ka shaqaysay garaadkaaga kuna cabir ra'yigaaga qaybta commentiga Professor Lopez waxa uu soo aadiyay tuulada uga fog magaalada si halka uu dhigto qayb kamid ah lacagtiisa dadkii joogayna uu soo wareystay xaaladooda uu soo ogaado waxa ay doonayaan maalmo uu la joogay markaan waxa uu sheegay inuu doonayo inuu dhaqaajiyo oo baxo laakiin dadkii deegaanka waxa ay u sheegayaan inay sogootinayaan oo ay raacayaan marka laga reebo saddex qofood kuwa uu sheegtay inay aad u xanuunsan yihiin Lopez waxa uu ku soo laabtay goobtii uu ka deganaa tuulada mise wuxuu ogaanayaa in maalinkii uu baxayay la xaday lacagtiisii intaa kadib waxa uu isugu yeerayaa saddexdii qofood ee sheeganayay xanuunka midkii koowaad waxa uu sheegayaa in maalinka uu lugta ka jabnaa socod iyo dhaqaaqna uusan ba awoodin xilliga kii labaadna waxa uu sheegayaa inuu aad uga xanuunsanaa ilkaha maadaama ay ka jabeen qayb kamid ah ilkihiisa halka kii saddexaadna uu sheegayay inuu yahay oday da' ah oo aanan awoodin inuu ku dhaqaaqo ficil noocaas ah tabarna uusan ba u haynin laakiin si kama kuma aysan qaadan professorkii inuu ogaado qofka xaday lacagtiisa haddaba ma sheegi kartaa saddexdan qofka tuuga ah waxay noo balana jawaabtaada iyo qaybta commentiga aynu soo laabana muuqaalkeena filmku waxa uu ku bilaabanayaa muuqaalo yar oo ku saabsan maalinta nadiifinta dadka ku jira muuqaaladu waxa ay u muuqdaan kuwo islaynaya oo aanan isku muujinaynin wax naxariis ah maalinkan waxaa bannaan in qofka uu samayn karo wax walba oo faldambiyeed ah isagoo aanan xeer iyo sharci midna uusan qabanaynin iska badaa in la soo xiray booliskii iyo ambalaastuba ay mamnuuc tahay inay shaqeeyaan maalinkan waa hal maalin oo kaliya sanadkii waxay bilaabataa 7 maqribnimo ilaa inta laga gaarayo halka saac subaxnimo waa 12 saac oo uusan wadanku ka shaqaynaynin wax sharci ah intaa kadib muuqaalka markaan waxaan ku aragnaa ninkan oo lagu magacaabo James waxa uu saaran yahay gaarigiisa sikadiisa waxa uu soo wacay saaxiibkiisa isagoo u sheegaya inuu xasuusto oo uu ku baraarugo maalinka inuu soo dhow yahay markii uu ka baxo koolka isla markiiba waxa uu raadiyay gaarigiisa ka maqliyaa in dadka ay isku diyaariyaan maalinka oo ay galaan taxaddar badan maadaama ay jiraan dad soo weerari kara intaa kadib James oo weli saaran gaarigiisa waxa uu soo mariyaa cidda deriska oo iyaguna isku diyaarinaya maalinka markii uu yimaado gudaha gurigiisa waxa uu la hadlayaa xaaskiisa oo lagu magacaabo Mary halka iyaduna xilliga ay u sii socotay banaanka si ay ula hadasho cidda deriska oo xilliga u sidii cunto ay ku soo dhaweynayeen maalinka Mary markii ay ku soo laabato guriga waxa ay galaysaa jikada si ay u diyaariso cunto habeenkii James iyo qoyskiisa oo ku wada cunteynaya miiska cashada waxa uu hal mar ka war helayaa in saacadu ay tahay 7 maqribnimo oo ku beegan xilligii ay bilaaban lahayd maalinka nadiifinta isla markiiba waxa uu daariyaa CC kamerada ku xiran afaafka hore ee gurigiisa sidoo kale waxa uu shidayaa batoonka aalada badbaadinta taasi oo ay soo saartay shirkadda Malta oo isagu ka yahay maamulaha intaa kadib isaga naftirkiisuna waxa uu diyaarsanayaa biskoolad si uu isku difaaco haddii ay dhacdo in la soo weeraro in cabaara kadibna TV-gu waxa uu ka arkayaa ogeysiiska in la gaaray maalinka nadiifinta taasoo ka dhigan inta lagu guda jiro waqtiga in ay fasax yihiin wax walba oo hub ah sidoo kale qofkii geystay dambiyo waaweyn uusan qabanaynin sharciga intaa kadib James iyo qoyskiisuba waxay isku diyaarinayaan inay waajahaan cid walba oo soo weerarta isla xilligaana mid kamid ah James gabdhihiisa oo lagu magacaabo Zoya waxay soo aadaysaa qolkeeda laakiin sikadiisa waxay ka war helaysaa shakhsi ku soo boodaya nasiib wanaagsan waxay ogaanaysaa inuu yahay saaxiibkeeda Harry kaasi oo aabaheedu u diiday dhowr jeer maadaama ay iyadu aad u da'yar tahay halka isaguna uu isku dayayo in aabaheedu ku qanciyo inuu u ogolaado saaxiibtiisa si walba ay noqoto dhinaca kale qoysku iyaguna waxay ku mashquulayaan hawlo kale Mary waxay bilaabaysaa inay isu madadaaliso caalamiinto halka Jamesna uu qorayo qorshayaashii iyo fikradihii uu ku soo kordhin lahaa shirkadiisa halka labadiisa gabdhoodna ay ku kala mashquulsan yihiin laba dhinac Shirley waxa ay ciyaaraysaa game sidoo kale Zoe iyaduna waxay waqti la qaadanaysaa saaxiibkeeda Harry isla xilliga James gabadhiisa Shirley waxa ay eegaysaa CC kamerada ku xiran banaanka mise waxay arkaysaa shakhsi si aad u cararaya kaasi oo isku dayaya inuu meel ku dhunto si uu isku badbaadiyo isagoo waliba si cod dheer u dalbanaya caawimaad Shirley oo isxakameyn karin dareen ahaan waxay go'aansanaysaa inay caawiso isla markiiba waxay riixaysaa batonkii albaabada si uu gudaha u soo galo James isla markiiba waxa ogaanaya in open laga dhigay aaladii badbaadinta sidoo kalena ay wada furan yihiin albaabada oo idil waxa uu soo cararayaa qolkii kontaroolka si uu u xiro mar kale albaabada laakiin waa xilli uu gudaha u soo galay ninkii weydiisanaya caawimaad isla markiiba James waxa uu bilaabayaa inuu u handado kuna amro inuu ka baxo guriga isagoo u sheegaya inuusan doonayn inuu geysto wax dhibaato ah si hadal la'aana ninku uu aqbalaya balse iyaga oo meesha taagan ba sikadiis waxay ka war helayaan Zoya saaxiibkeeda Harry oo James ku soo ridaya xabad si uu u dilo maadaama uu aaminsan yahay inuu yahay qofka kaliya ee ka hortaagan inuu helo saaxiibtiisa Zoya laakiin James oo ka badbaaday waxa uu ku qaylinayaa xaaskiisa isagoo aad uga xun inaysan u sheegin in qofkan uu joogay gurigiisa isla markiina waxa uu soo kaxaynayaa qolka qaaska ah si ay ugu badbaadaan halka laakiin yirida gurigeeda waxa uu ku arkayaa Henry oo meed ah balse iyada aan wax dhib ah loo geysanin isla markiiba Mary waxay arkaysaa gabadheeda Zoya oo ku furan yahay qalqal badan waxay isku dayaysaa inay dajiso balse Zoya waxa ay u sheegaysaa inay ka cabsanaydo aabaheed maadaama aysan sheegin markii ay guriga ku dhex aragtay saaxiibkeeda Henry laakiin Mary waxay mar kale isku dayaysaa inay dajiso gabadheeda oo ay ka
saarto cabsida. isla xilligaana iridda hore ee gurigooda waxaa soo buuxsamaya koox ka mid a dadkii ka qaybgalayay maalinta nadiifinta oo aad u caraysan, kuwa oo weli ku hubaysan hub dilaa ah. mid ka mid a hogaamiyahooda waxa uu soo dhowaanayaa CC kamirada, waxa uu u sheegayaa keliya inuu doonayo shakhsigii socday wadadan ay weydiisanaya caawimaad, isagoo u sheegaya inuusan doonin in wax dhibaataa uu u geysto iyaga, balse keliya ay soo saaraan oo ay keenaan ninka banaanka, haddii kalena ay weyn doonaan naftooda. James iyo qoyskiisuba waxay bilaawayaan inay raadiyaan ninka maadaama uu ku dhex dhuuntay gudaha guriga. Si lama filaan ah, James gabadhiisa Charlie waxay ogaanaysaa halka uu ninka guriga kaga jiro, balse mar kale waxaa si kadiisa ula hadlaya hogaamiyihii, isaga oo James u sheegaya inuu yaqaano waxa uu yahay iyo waxa uu galaba, sidoo kalena uusan doonayn inuu wax dhibaataa u geysto qoyskiisa, si walba oo habeenkan waxa uu sameeyay aan lagu qabanaynin. laakiin James waxa uu sheegayaa inuusan isaga aqoon u lahayn, balse intuusan hadal ka dhameynin, ninkii waxa uu imaanaya shakhsi kale oo raba inuu hadlo, laakiin si jawaab la'aan ah waxa uu ku dhufanayaa xabad. isla markiiba James waxa galaysa cabsi, wuxuuna soo galayaa gudaha guriga si uu u raadiyo shakhsigii, naftooduna ay u badbaadsadaan ilaa uu baaro badi guriga oo idil. laakiin si lama filaan ah waxa uu arkayaa shakhsiga oo biskoolad ku haya gabadhiisa. ninkii waxa uu James u sheegayaa haddii aad iga badbaadiso dadkan, aniguna waxaan ogolaan doonaa inay badbaado gabadhaada. isagoo weli hadalka sii wata, si lama filaan ah waxa gadaal uga imaanaysa xaaskii James ee Mary. intaa kadibna James waxa uu si aad ugu soo boodaya ninka si uu u qabto ilaa uu mirdaboolmay. isla markiina James waxa uu ka xirayaa afka iyo gacanta si uusan mar kale ugu dhex dhuuman guriga. laakiin Mary iyaduna markan waxa galaysa cabsi maadaama ay aad uga naxday sida ninka uu dilay James, balse waxay maqlaysaa qaylada gabadheeda Charlie. isla markiiba waxa ay u soo cararaysaa dhinaceeda, halka ninkiina uu James mar kale ku dhahayo haddii aad iga badbaadiso dadkan, qoyskaaguna way badbaadi doonaan. James isla markiiba wuu isbedelayaa, wuxuuna go'aansanayaa inuu badbaadiyo ninkan, halka isaguna uu ka codsanayo inuu la difaaco qoyskiisa haddii ay soo weeraraan kooxdii. isla waqtiga kooxdii iyaguna waxay bilaawayaan inay dumiyaan albaabada hore ee guriga si ay gudaha ugu soo galaan. dhinaca baara kadibna waxay ku guuleysanayaan inay gudaha u soo galaan guriga si ay u dilaan waxa ku jiro oo idil. intaa kadib James gabadhiisa Charlie waxay markan ka warhelaysaa inuu dili rabo mid ka mid ah kooxdii. nasiib wanaagsa waxaa gadaal ka tooganaya aabaheeda James. intaa kadibna waxa uu soo gelinayaa qolkii qaaska ah si halkan ay ugu jirto maadaama gudihiisu ay tahay safe. intaa kadibna James isaguna waxa uu soo aadayaa qaybaha kale ee guriga si inta kale ee qoyskiisu ugu soo xareeyo qolkan. laakiin lama filaan, isagoo weli dhex wareegaya gudaha guriga waxaa soo weeraraya laba ka mid ah kooxdii si ay isaga u dilaan. nasiib wanaag waxa uu kaga hormarayaa xabadda. intaa kadibna isagoo raba inuu ka soo baxo iridda qolka, waxaa mindi caloosha u qabanaya hogaamiyihii kooxda ee marka hore u sheegaya inuusan doonin in qoyskiisa iyo isagaba uu wax gaarsiiyo haddii ay banaanka keenaan ninka. laakiin markan waxa uu sheegayaa inuusan marka horeba doonin inuu dilo, balse isaga uu gaarsiiyey heerkan maadaama uu soo bixin waayay ninka. intaa kadibna waxa uu saaxiibadii ku amrayaa inay laayaan waxa ku jiro gudaha guriga oo idil. isla xilligaana gabadhii James ee Zoya oo eegaysa CC kamirada ku xiran banaanka waxay arkaysaa dad ka soo degaya gaari oo laynaya dhammaan kooxdii joogtay banaanka, kadibna si degdeg ah u soo galaya gudaha guriga. isla xilligaana xaaskii James ee Mary waxaa soo weeraraya laba ka mid ah kooxdii si ay u dilaan, balse lama filaan waxaa dilaya dadkii ka soo degay gaariga ee soo galay gudaha guriga. Mary oo aan ilaa hadda garan sababtii ay u badbaadiyeen waxay isku dayaysaa inay dhuumato oo ay isqariso si aysan iyaguna u dilin. intaa kadibna waxay bilaawaysaa inay raadiso gabdhaheeda, balse si lama filaana waxay arkaysaa saaxiibkeeda James oo dhaawaca. isla markiiba iyadiyo gabadheeduba waxay ku soo cararayaan James si ay u badbaadiyaan, laakiin si kadiisa haddana waxay arkayaan hogaamiyihii kooxda oo u sheegaya inay u fududeeyeen oo ayba hal meel isugu yimaadeen, haddana uu awood u leeyahay inuu ku dilo hal xabad. wuxuu ku soo aadinayaa qoriga. Mary waxay daboolanaysaa indhaha iyadoo maanka ku haysa in tani ay tahay daqiiqadaheedii ugu dambeeyay ee nolosha. laakiin si lama filaana waxaa goobta imaanaysa gabadheeda Zoya, waxay gadaal ka tooganaysaa hogaamiyihii kooxda. intaa kadibna waxay ku soo boodaysaa aabaheeda iyadoo weydiisanaysa inuu saamaxo maadaama aysan u sheegin marka hore in saaxiibkeeda Harry uu guriga joogo. James markii uu saamaxo daqiiqada kadib waxaa ka baxaysa nafta. Mary iyo gabdhaheeduba waxaa galaysa murugo ka weyntii hore maadaama uu daraadood u dhintay qofkii difaacayay naftooda. sikadiisna waxa uu imaanaya dariskooda oo ahaa dadkii ka soo degayay gaariga ee dilay kooxdii joogtay banaanka. marka hore Mary way u mahadcelinaysaa maadaama ay badbaadiyeen, laakiin reerkii darisku waxay u sheegayaan in halkan aysan u imaanin inay difaacaan oo iyagu badbaadiyaan, balse ay u imaadeen keliya oo ay doonayeen inay ka hargoostaan maalinka nadiifinta oo ay basugi weysnaayeen inta laga gaarayo. tanina ay tahay fursadooda maadaama si walbo ay wax u sameeyaan uusan qabanaynin sharciga. Mary iyo gabdhaheeduba waxay bilaawayaan inay la hadlaan, laakiin xaaskii dariska waxay u sheegaysaa in tani ay tahay fursada keliya ay muddo sugayeen. intaa kadibna waxay meesha ka fogeynayaan meydkii James. Mary oo isku dayaysa in xitaa gabdhaheeda loo fasaxo waxay weydiinaysaa marka hore waxa ay ka haleeyeen oo ay ku dilayaan, laakiin waxay ugu jawaabayaan in marka horeba ay dilayaan gabdhaheeda kadibna ay u soo jeesan doonaan iyada. intaa kadibna waxay ka xirayaan indhaha iyo gacmaha iyagoo u sheegaya in hadda kadib ay heli doonaan aaladda badbaadinta oo ay soo saarto
shirkadii James isla xilligaana iyagoo isku diyaarinaya inay dilaan ninkii weydiisanaya caawimaad oo uu James badbaadiyay isla markiiba waxa uu tooganayaa qayb kamid ah deriskii kadibna waxa uu Mary iyo gabdhaheeduba ka furayaa indhaha iyo gacmaha intaa kadibna waxa uu bilaabayaa inuu dilo intii ka hartay reerkii deriska laakiin Mary oo diidaysa waxa ay u sheegaysaa inaysan doonin dhib kale inta ka dhiman habeenkana ay si nabada ku joogayaan in cabaara kadib saacadu markay ay isdul taagtay 12:55 daqiiqo kaliyana ay hartay wax ka yar 5 daqiiqo Mary waxay milicsanaysaa gabdhaheeda oo ku dul ooynaya aabahood isla xilliga ay milicsatayna xaaskii deriska oo ka faa'iideysanaysa fursadda waxay isku dayaysaa in Mary ay ka dafto biskoolada si ay ugu disho laakiin Mary oo ka muuqday taxaddar waxa ay ku dhufanaysaa afka iyadoo dhagta ugu dhibcinaysa in mar kale aysan doonin diyaarna aysan u ahayn in gacanteeda ay qof ku disho halka dhinaceedana uu ka muuqdo ninkii ay u fidiyeen caawimaad isaga oo ka soo baxay balantii uu hore u qaaday oo ahayd haddii ay badbaadiyaan inuu badbaadinayo naftooda xilligaana saacadu waxay isku beeqaamisay 7 aroornimo ama 1 saac subaxnimo waana xilligii uu xirmi lahaa maalinka nadiifinta ama maalinka dilka midda doontaba dheh waxyar kadibna waxaa muuqanaysa booliskii iyo sharcigii oo ku soo laabanaya sidii hore iyada oo dowladda maalinka u fasaxday si ay u yaraadaan faldambiyada tirada badan qof walbana qofka uu wax u hayo uu ka argoosto inta lagu guda jiro maalinka haddaba markii loo fiiriyo ka Soomaali ahaan maxaa isdhihileed way dhici lahaayeen haddii ay jiri lahayd maalin noocan oo kale ah inkastoo aynu nahay dad islaam ah diinteenuna ay meel adag gaarsiisay dhiigga qofka muslimka ah ugu dambeyn waxaan isla soo gaarnay saaxiibayaal dhammaadka muuqaalkeena maanta waxaan rajaynayaa in muuqaalka aad la dhacday lana wadaagi doonto ugu yaraan mid kamid ah saaxiibada si uu u daawado mahadsanid